annaka maanta aan ku soo noqonnay magaalada Dhuusamareeb oo caasimadda Galmudug muddo 6 maalmood ayaa safar ku ahayn magaalooyinkeeda kala duwan oo aan la kulmayna soo idin sheegaba qaybaha kala duwan ee bulshada aad iyo aad ay noo soo dhaweeyeen waa u mahad celiheynaa meel kasta ay joogaan dadka soo dhaweeyay odayaashii dhaqanka culumadii dhalinyaradii aqoon-yahanadii ururada dumarka oo soo dhaweeyay mahad gaar ah ayaan u jeedinaynaa runtii taas halkaas markaan mahad celinta uga soo tago soo idin sheegaba gudoomiye ku-xigeenku dadka reer Galmudug baahi weyn ay u qabaan way muujiyeen shirka inay ka soo qayb galaanna way waafaqsan yihiin kulligood tabashooyin badan ayay qabaan meel aan tagno tabasho aysan jirin ma jirin meel kasta tabasha jirtay qaar waxay kala tabanayeen beelaha dhexdooda ay kala tabanayeen qaar waxay ka tabanayeen maamulkii hore ee meesha ka jiray ka tabanayaan iyo si wax loo qaybsaday qaar waxay qabaan taqaana amniga meesha shaqada lagu qabanayo ay tabasho ka qabaan tabashooyinku way badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin qaar waxayba ballan qaadi hore loo sameeyay ka tabanayaan waxa soo dhigay marka la isku daro annaka hadaan guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta Galmudug risaalada aan u wadna ama fariintan u sidna waxay ahayd wax kasta waxa ka dhaxaysa reer Galmudug waxaan rabnaa beelaha dhulka inay ka soo qayb galaan wixii tabasho dhexdooda ay halkaas ku xaliyaan wax alla waxa ay rabaan oo ku saabsan dib u dhiska dawladnimadana inay halkaan uga naqaashaan hadday rabaan dastuurka inay wax ka bedelaan hadday rabaan inay mataqaanaa ay qaab ay wax u qaybsan jireen bedelaan ayakay u taala marka waxaan dhahnaa anaka u sheegnay oo fariintayna ay ku wajahneen walaalayaal isku imaada xaruntiina isugu imaada xaruntaan waxay noqon doontaa insha Allah meel nabad ah oo isugu imaan kartaan baahida ku saabsan logistikada waa dhamaystiraya si degdeg ah inta isugu timaadeen walaalayaal mashaakilkiina idinku xalista oo xalka meel kale ha ka sugunina sidaas ayaa fariintooyna ahayd dadku fariintaas aad iyo aad u aqbaleen tabashooyinka ay qabeenna waxaan ahnaa waxa goobta ayaa la imaan doontaan tabashooyinkiina wixii mashaakil oo jirna waan xalinaynaa awalba awal u xalin doonaa taas horta waxa waaye waa fariinta aan rabno inaan inta dadka u gudbino waxaan ugu baaqayaa marka waxgaradka iyo aqoon-yahanada siyaasiyiinta reer Galmudug meel kasta ay joogaan waa inaan la siyaasadaynin dib u heshiisiinta Galmudug dib u heshiisiinta Galmudug ma laha mucaarad iyo muxaafid ma laha dawladda Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaaraheedii muddo dheer halkan uu joogo waxaa ka go'an inay baahidii loo qabo ku saabsanaa fududaynta shirka amba logistic ha ahaato amba ha ahaato amni ha ahaatee inay meel fiican soo saarto ayaa ka go'an anagana guddigeena dib u heshiisiinta waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadku inay ka soo wada qayb galaan ayaka oo meelo kale milacsan mashaakil kasta oo jira iyo fikir kasta ay qabaan ay la yimaadaan Dhuusamareeb ayaan horta ugu baaqaynaa shacbiga Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaa insha Allah Galmudug marar badan wax laga sheegay Galmudug oo nabad ah oo dadkeedu heshiis yahay oo dawlad ka dhaxaysa samaystay oo dawlad ay heshiis ku yihiin oo soo celisa amniga kala dambeynta Galmudug soo celisa oo horumar ka shaqeysa say ku imaanayda ayaan ka shaqeynaa annaka feeska ugu horeeya ee hawshan loo igmada ayaan ka shaqeynaynaa feeska dambana say noqon doonaan insha Allah dadka ayaa ka tashahay waxay ku tashadaan inay noqotaan rajayna aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh